dawlad wax qabad lama jirto dawlad isku duuban oo direction u wada socota leh ma jirto Cabdixaan Abshakuur oo weerar toos ah ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib tallaabo ay qaaday Villa Soomaaliya soo noqoshada Donald Trump oo gilgishay caalamka Ilhaan Cumar oo baxar ku jirtay wararkii ugu dambeeyay siyaasadda gudaha oo meel xasaasi ah gaartay ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqayn doona qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay Cabdixaan Abshakuur ayaa weerar toos ah ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib tallaabo ay qaaday Villa Soomaaliya xilli uu sheegay siyaasigan in dowladda madaxweyne Xasan ay ku fashilantay hogaaminta iyo adeegidda dadka iyo dowladda Soomaaliyeed. Cabdixaan Abshakuur warsame ayaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee sida weyn uga soo horjeestay qorshihii dhawaan ka soo baxay shirkii golaha watashiga qaranka iyo tallaabooyinka siyaasiga ah ee dowladda madaxweyne Xasan ay qaaday. Waxay ku heshiiyeen isaga Cabdixaan Abshakuur warsame Kheyre iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed samaysashada kudlad mucaarad ah kuwaas oo ay ku doonayaan in dalka looga samata bixiyo xaaladda adag ee Soomaaliya maanta ay wajahayso iyo in laga soo horjeesto qorshaha muddo kororsi iyo dowlad boobka ee wado madaxweyne Xasan iyo kooxdiisa. Cabdixaan Abshakuur qoraal uu ku baahiyay Facebookiisa waxa uu ku yiri madaxweyne Xasan wax qabadka ay dadka ka sugayeen wuxuu u bedelay kuwa uu qabuuraha ka soo faago kuwa uu guryaha ku duldumiyo iyo kuwa uu dibadda ka soo tarxiilo madaxweyne shacabka u turay ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa waxaana tani ka dhigan tahay in Xasan Sheekh Maxamuud meel walba looga dhagan yahay xitaa siyaasadda arrimaha gudaha ay gaartay meel xasaasi ah ayna u muuqato in siyaasiyiinta mucaaradka ay hadda abaabulayaan qorshayaal siyaasadeed oo la doonayo in lagu wiiqo damaca siyaasiga ee Xasan iyo kooxdiisa Villa Soomaaliya joogta. Sidoo kale waxaa sii badanaya kala daadashada xukuumadda iyo ka tagista wasiiro badan iyadoo tani ay ka dhigan tahay in ay Soomaaliya mar kale gashay marxalad adag oo dhanka siyaasadda ah. Sidoo kale xogaha waxa ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hadda ku hulan yahay sidii uu ugu yaraan u kala daadin lahaa xubnaha mucaaradka oo hadda gaashaanbuur sameysanaya taasoo uu u arko halista kaliya ee ku geedaaman xukunkiisa iyo in uusan sii fadhin karin Villa Soomaaliya inta caasimadan ay joogaan ragga isaga ku dhariga ah ee ku sugan Muqdisho hubka iyo ciidankana heesta taas ayaana hadda qorshaha kale ee uu doonayo madaxweyne Xasan inuu soo farageliyo waxaana dhawaan bilaabanaya mashruuc lagu sheegay hubka dhigista caasimadda taasoo si gaar ah loo qorsheeyay in hubka iyo ciidanka looga qaado siyaasiyiinta aragtiyan ka soo horjeeda madaxweyne Xasan sida madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre Cabdixaan Abshakuur warsame Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Odawaye Yuusuf Raage Axmed Daaci iyo rag kale oo siyaasiyiin ah oo la sheegay in hub iyo ciidan ay ku heestaan caasimadda ayaa hadda la xaqiijiyay hubka dhigis in lagu sameeyo taasoo uu doonayo madaxweyne Xasan inuu ka dhigo shacab deetana uu ku adeegto dhammaan awoodda dowladnimada sida ay sheegayaan ilo wareedyo amni oo xogtan si hoose loo wadaagay. Dhinaca kale Trump wuxuu ku guuleystay doorashadii Mareykanka waxay noqotay mid ka mid ah midda loogu hadalaynta badan yahay caalamka xilli ay u muuqato in ninkan uu soo bandhigay qorshayaal siyaasadeed oo ku wajahan Soomaaliya bariga dhexe iyo guud ahaanba soo galootiga Mareykanka ku sugan. madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump ayaa mar kale dib loogu doortay xilkaasi kadib doorasho adag oo ka dhacday dalkaasi isaga oo ka guuleystay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo Hindiya aslaan ka soo jeeda. iyadoo weli natiijada gobolada qaar aan si rasmi loo go'aamin ayaa Trump waxa ilaa iyo hadda saadalinaya inuu ku guuleystay tirada ergada codeynta ee ku filan si uu madaxweyne u noqdo. Trump ayaa ilaa hadda xaqiijiyay ku guuleysiga 227 oo ah ergada codeynta ama electoral college halka Kamala Harris ay ilaa hadda ku guuleystay 224. Trump ayaa u baahnaa 220 si uu u noqdo madaxweyne waxayse ka dhigan tahay 7 cod oo dheeri inuu haysto taasoo u saamaxaysa inuu sii hogaamiyo Mareykanka 4 sano kale oo xiriira. haddaba dad badan oo caalamka ayaa u tahniyadeynaya doorashada Trump waxaana ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya kan Yuhuudda iyo mas'uuliyiin kale. Trump ku guuleysiga doorashada Mareykanka waxay ka dhigaysaa madaxweynihii 47 ee dalkaas iyo in loo mar uu jabiyo score ah inuu la tartamay haweeney labada marna ku guuleystay. Trump wuxuu helay codadka ugu badan waxaana meesha ka baxday awoodda maamulka ee xisbiga dimuqraadiga. taageerayaashiisa ayaa durba isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyagoo sameynaya dabaaldegyo ay ku muujinayaan guusha Donald Trump. sidoo kale waxaa iska soo daba dhacaysa fariimaha hambaliyada ah ee loo dirayo Trump waxaana hambaliyay madax kala duwan oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay inuu u rajaynayo in la sii wado iskaashiga labada dawladood. waxaan kugu hambaliyaynaynaa mudane madaxweyne Donald Trump guusha taariikhiga ah ee doorashada Mareykanka. waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno iskaashiga xoogan ee labadeena wadan si loo horumariyo nabadda, amniga iyo horumarka ayuu Xasan Sheekh ku yiri
qoraal uu ku baahiyey barta villa Soomaaliya. madaxda kale ee caalamka ee hambalada diray waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. waxa uu yiri mudane Donald iyo Marwo Melania Trump hambalyo taariikh weyn oo dib u soo laabasho ah dib ugu soo noqoshadiina aqalka cad waxay asaas u tahay Ameerikada awoodda leh oo xulafo la noqota Israa'iil. Benjamin iyo Zara Netanyahu ayuu yiri Masar Benjamin Netanyahu oo qoraal soo saaray. dhankiisa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu hambalyeeyo doorashada Mareykanka ee Trump ku guuleystay isagoo sheegay inay ka dhigan tahay dib u soo celinta amniga geeska Afrika. soo laabashada Trump sida uu ku micnayay hadalka Abiy Ahmed oo muuqda in taageero uu ka raasanayo hogaamiyaha dowladda Mareykanka ee Donald J. Trump. dhankooda hogaamiyaasha dalalka Yurub, Afrika iyo Aasiya ayaa iyana tahniyado u diraya Donald Trump iyagoo ku boorinaya in uu horseedo nabad iyo xasilooni ka dhacda gobolka geeska Afrika, bariga dhexe iyo guud ahaan mandiqada caalamka oo meel walba oo dunida maanta dhibaato ka taagan tahay. doorashada Mareykanka ayaa soo gabagabowday waxaana ay ka dhigan tahay soo laabashada Trump in ay muujinayso wax badan iska bedeli doonaan siyaasadda dibadda. haddaba sidee guusha Trump u saameyn kartaa bariga dhexe? Maxamed Cali Biixi oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan Nairobi isla markaana ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo xiisad dagaal ay ka jiraan ayaa sheegay in natiijada soo baxday ee doorashada Mareykanka ay saameyn weyn ku yeelanayso gobolkaas iyo dalal Islaamka ah, isagoo sheegay in Washington ay si gooni ah ugu lug leedahay dhammaan xaaladda bariga dhexe ka taagan. Mareykanka waa wadan weyn oo dhinaca dhaqaalaha iyo militariga adduunka hogaamiya, markaasna doorashadiisu saameyn ay ku leedahay marka la eego dunida Islaamka. saameynta goonida ah ay iyagu ku leedahay waxa weeye gobolkan oo ay ku badan yihiin oo ah gobol ay xasarado ka jiraan si weyn loogu loolamo, ayuu yiri falanqeeyahan. sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday arinta magaalada Gaza iyo dagaalka cusub ee ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lubnaan iyo Iiraan kaasoo hadda gaaray meeshii ugu xumayd. waxaan ognahay xaaladda Gaza oo Mareykanku saameyn ku leeyahay oo dagaalada halkaasi ka socda ay Israa'iil ka wado. Mareykanka si gooni ah ayuu ugu lug leeyahay iminkana waxaa sii dheer Lubnaan iyo Iiraan oo dagaalku ku sii fidayo ayuu dalkiisa raaciyay. isbedelka ka dhacay Mareykanka ayaa isha lagu hayay maadaama Trump uu yahay nin adag oo siyaasadiisa ku dhufta meelo badan sida la xasuusto mudxuleedkiisii hore. waxaana hadda la saadaalinayaa in soo laabashadiisu wax weyn ay ka bedeli doonto xaaladaha guud ee gobolka iyo si gaar ah midda bariga dhexe. dhankeeda Ilhaan Cumar ayaa guul muhiim ah ka gaartay doorashadii ka dhacday ee Mareykanka. Ilhaan waxay u mahad celisay dadkii u codeeyay iyadoo sheegtay in ay ka shaqeynayso tallaabooyinka lagu horumarinayo bulshada ay matasho ee soo dooratay. dad badan ayaa hadalhayn ka dhaliyay baraha bulshada markii la xaqiijiyay in ay guuleystay Ilhaan Cumar xilli Donald Trump mar kale dib loo doortay kadib doorasho adag oo ka dhacday dalkaasi, isagoo ku guuleystay madaxweyne ku-xigeen ee Mareykanka ahayd Kamala Harris xilkaasna kula tartamaysay. waxyaabaha la soo hadal qaadayay waxaa ka mid ah in Ilhaan iyo Trump marar badan ay isdhaafsadeen hadallo adag. haddii ay mar kale saaxadda siyaasadda isku arkaanna hawshu halkeeda ka sii socon doonto, waa sida hadalka loo dhigay. inkastoo natiijada gobolada qaar aan lagu dhawaaqin, haddana Ilhaan waa mid ka mid ah arrimaha lagu adkeeyo Donald Trump si ugaan looga jeediyo indhaha Soomaalida oo uu si gaar ah isha ugu hayo. Donald Trump iyo Ilhaan ayaa dhowr jeer kala duwan isku qabtay siyaasadda Mareykanka, xitaa isla gaaray hadallo kulul oo labada dhinac isdhaafsadeen. mar kalena waxaa loo arkaa soo baxoodu inuu muujin doono siyaasad adag oo Mareykanka dilaacda iyo in Ilhaan mar kale difaaci doonto muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed oo Mareykanka ku nool kuwaas oo Trump uu qorsheeyay in dib loogu celiyo dalalka ka yimaadeen ee Afrika. saaxiibayaal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. nabadgelyo.